waxa la yiri bari baa waxa saaxiib ahaa laba nin. labada nin nin faqiir ah iyo nin taajir ah. ninka faqiirka waa nin iska beeraley ah oo beerihiisa iska fasha wax hantiyo badan oo saasana kama helo. ninna waa nin taajir ah oo hanti badan haysta. isku gurina waa degan yihiin. waxa la yiri ninkii taajirka waad garanaysaan oo nin taajir iyo nin faqiir ah isna saaxiib ah isku level ma aha isku meel lama joogaan. waxa dhacday ninkan faqiirka ah gurigiisa markuu tago albaabka ma xirto daaqadaha ma xirto halkaasuu iska seexdaa jawi wuxuu iskaga jiraa degan oo farxad ah wax ka maqan ma jiraan. ninkan taajirkaana xisaabaad iyo adduun iyo waxbuu iskaga jiraa. markasta wuxuu arkaa baa la yiraahdaa gurigan albaabkan iska furan ninkan aan daaqadaha xiran albaabka xiran. wuxuu isweydiiyey ninkan waay maxaa dhacay sababtoo ninkan guriga u xiran maxay tahay. waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah buu ninkii u yeeray. wuxuu siiyey baa la yiri boorso lacag ka buuxdo. wuxuu yiri hebelow saaxiib kulay nin danyar tahay faqiira waxba haysan anigana nin waxa tahay saaxiibkaya marka maadaama nin saaxiibkaya tahay dee wax la'aantuna dhib tahay maanta lacagtaan baan ku siiyey lacagtaan qaado. lacag aad u badan ku siiyey. ninkii wuu ku farxay aad u farxay oo saaxiibkiisa uu mahad celiyo lacagtiisa buu qaatay. waxa la yiri habeenkii markii la gaaray albaabadii buu xiray daaqadihii buu xiray meel kasta oo iska furnaan jirtay albaabadu isku laaba. kaaga sii darane 12 habeenkii ma seexan uu soo jeedaa. waxa la yiri markii sidoo habeenkii oo dhan u soo jeeday oo 12 habeenkii u dhafar u ahaa waagi markuu bariyay asagoo lacagtii wada wuxuu u yimid ninkii saaxiibkiisa ahaa. kaasi wuxuu ku yiri saaxiibow lacagtaada iga qabo iga hor ana mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay. wuxuu yiri saaxiib maxaa dhacay. wuxuu yiri hadal aad u cajiib ah. wuxuu yiri saaxiib lacagtaada siisay waxay ii diiday buu yiri farxadii. farxad baan haystay jawi degan baan haystay bilaa cabsi baan ahaa bilaa walwal baan ahaa intiiba ayada igu riday. cabsi bay ii gelisay walwal bay ii gelisay waxaan ku idhaahdaayo hurdo la'aan bay ii gelisay ilaalay ii gelisay anigii oo dhan xaalad kale ii gelisay. marka mar raba buu yiri inaan waayo farxadayda saaxiib iga hon lacagtaada waana mahadsantahay. sheekadan yar marka waxay noo sheegaysaa waad samayn kartaa lacag laakiin lacagtu farxad kuma gadi karto. lacagtu wax walba oo aad awoodo aad u baahan tahay way ku iibin kartaa waxaan ka ahayn farxadda. soo lacagtu farxad ma abuurto. farxaddu waa waxa ugu qaalisan uguna muhiimsan inay qof kasta uu helaa uu jecel yahay. dad maanta oo dhan hanti haysato laakiin aadan farxad haysan macno badan kuma samaynayso. marka hantida waa muhiim ilaahay waa muhiim nooga dhigay laakiin waxa ka sii muhiimsan farxadda. marka weligaa markaad farxad ka helaysid ha ku doorin ana ku dhaafsan waxaadan farxad ka helayn.